السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامتك إن شاء الله. ولها ينقول علوني كلمة إسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة داسي إحنا وين فريسة وإحنا وين غريبسة. إحنا فريسة دان قادنا كنا قادنا وضد الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول سنة الدنيا آخره. وحين غريبسة دان كهرنا وأنا كهرنا سيد إله سبحانه وتعالى أنه فري أن كهرنا سيد كلا الدنيا آخره ونقول سنة. أنت كذب. هدانو نهاية دليرتا Soomaaliyeed maxaa noogu gudboon waxyaalaha socda maxaa noogu gudboon maxaan sameynaynaa waxyaalaha hadda ka socda gobolada Soomaaliya qayb ka mid ah gaar ahaan Hargeysa Somaliland innaga ahaan maxaa noogu gudboon maadaama iyaga ay sheegteen inay yihiin wadan oo gooni ah ayaga isku magacaabay siday doontaba ha ahaatee soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen yahuudana aqoonsiga ay sheegayso siisay arrimahaas annaga maxaa nooga gudboon haddaan nahay dhalinyarta Soomaaliyeed ee Islaamka haddaan nahay intaan guda galin islaamku muxuu ka qabaa ama diinta maxay ka qabtaa yahuuda in la soo dhaweysto yahuudu kuwaas amaanta soo dhaweysanayna haddaan nahay Soomaali muslim ah annagoo ka raadinayno waxa la yiraahdo aqoonsi ama i'tiraaf inay aqoonsadaan oo ay dal aan noqono si ay dal noo aqoonsadaan waa inaan markaas soo dhaweynaa waxaa isweydiin mudan kuwa aad ka raadinaysid aqoonsiga iyaga dal miyaa mala aqoonsan yahay ayaga maya lama aqoonsano xataa gaalada ahayd yahuuda ma jecla gaalada ahayd ee istaaga ka kaadinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kufriyay ayaaba nacbam yahuuda iska daa adigoo muslim ah oo muslim sheeganaya dadka ay laayeen ay yihiin dad muslimiin ah oo weliba wax galabsaneen boqolkiiba 99.9 shicib waxay laayeen waa shicib waxay rabaan inay meeshay degan yihiin xoog ugu qaataan ay maamulaan aqoonsigani maxaa ku hoos duugan marka aqoonsigan waxaa ku hoos duugan arrimo ayaga u qarsoon dambay leeyihiin bilaash dadku uma soo galan yahuuda bilaash kuma imaadaan meel yahuuda gashana khayr lagama sugo meel yahuud gashay khayr lagama sugo weligaa khayr ha ka sugin meel ay yahuud gashay saloon waxaa ka mid ah meelaha ay galeen yahuuda ay galeen meelaha ay galeen waxaa ka mid ah Suudaana ka mid ah meelaha ay galeen way burbursantahay meel walbo yahuud ay gasho waxa weeyaan ciribteeda dambe burbur buu ku dhamaanaya marka walaalayaal waxaan leeyahay intaan iska ilaalin karno aan iska ilaalino ilaah subxaanahu wa tacaala wuu naga digay inaan soo dhaweysano oo qaraawo ay ehel ka dhigano dhalinyaro fara badan baan arkaynay oo leeyihiin waa walaalaheena yahuud ayagoo u arkaya aqoonsiga ay siiyeen ay u aqoonsadeen dal ahaan intaa kale kule ereyadaas ku leeyihiin waa walaalaheena annaga yahuud baan nahay mar haddaad yahuud tahay macnaheedu waxa weeyaan gaal baan nahay
هذا الكاغا كفيرسو أفكا كسو بحي هذا الكاغي أفكا كسو بحيو كفيرسو قال وحبكو موتريو قرآن كلاه الشيء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لما يابو إن الرالي نجا هذان يهودا يا نصارى إلا أن رعنوا الدين تودمين آية سومان وحن آخر إلهي ما بين شيء ومين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وآية إلهي سبحانه وتعالى عيديس كمده ولن ترضى رالي منقونيان لما يا إن رالي أهذان النبي قال له هذا حقاقي رالي كما نقونيان يهودا ولا النصارى يا نصارى حقاقي رالي كما نقونيان إن كل رالي نقضان هسوين حتى تتبع ملتهم إلا أتكرع ذو دين توذا الله نبي الله شيء عليه نبي الله يهود يا نصارى حاجة يرالك وما أهل لما يا إن يرالك ونقضان إلا إلى أبي كذا الدين تودع عنه يعني إلا أدرع ضر دين تودع ما هنا سكال يرالك من قناه بركة ولا ليال إلهي وحنا قد جاي أو شر وحنا فرينا وح خيره ولا له إنه Soomaaliyeed degan ku nool Hargeysa Somaliland waxaan leeyahay waxaad tihiin dad fiican dad diintii iyo akhlaaqdii iyo nidaamkii diineed lagu yaqaanay ayaad aheedeen iska ilaaliya waxyaalaha qaar iska ilaaliya fudaydka qaar wax fiican maahan aniga asxaabteyda badankoodu waxay ka soo jeedaan xaggiina waa isaaq weligeena xumaan kumaanan arkin wanaag mooyaane waa dad aan ku tiriyo inay yihiin dad wanaagsan idinkoo idinna sidaas ayaan idinku yani ku tirinayay inaad tihiin dad wanaagsan laakiin dadka wanaagsan dad xun baa ku jira iska gacanta ka qabta kan xun ay hadallada xun afkiisa ka soo saarayo gacanta ka qabta اعتراف waad haysataan islaamnimada idinku filan اعتراف waad haysataan nidaamkiina idinku filan nidaamka aad samaysateen ee aad idinka isku dhaqmaysaan nabadaas yar aad samaysateen ayaa اعتراف idinku filan uma baahantiin اعتراف kale inaad raadisaan اعتراف kale uma baahantiin waad haysataan اعتراف tan kale adduunyadan waa adduunyo dhamaad ah cid baaqi ku noqonaysa male ama dal ahaa ama gobol ahaa ama waxaad doonaysid ahaa waa dhamaanaysa adiga waa dhimanay kuwa ku nool meesha way dhimanayaan meesha waxay noqonaysaa dhul caadi ah aan magac lahayn maanta adiga magac baad u raadinaysaa wadan baad ka dhig aad u raadinaysaa inaad ka dhigto laakiin maalin baa la gaari doonaa meesha adiga maanta aad yani ku sigatay ama aad yani qaar dhalinyarta qaarkooda kelimadaha qaar gaalnimada ka soo baxayaan sida ay u noqonayaan inay ahaan doonayso ama noqonayso meel aan magac lahayn xataa Soomaali ku adduunka oo dhan adduunka waxa weeyaan magac baa loo sameeyay meel walba magac dal hebel baa leeyahay laakiin way lumayaan waxaas qiyaamaha hadii la gaaro meeshaana dal hebel ahaan jiray lama dhahayo waxa weeyaan waxa soo haray wa ardullahi waasi'a meel walba waxay noqosaa dhulka Ilaahay magacaani hadda dadka baxsadeen ma jiraan doono marka walaal waxa diintaada aad uga baxdo meesha ma yaalo waxaad gaal aad ugu jeclaato meesha ma yaalo waxaad gaal dabada aad soo gashato meesha ma yaalo waxaad yahuud soo dhawaysataan meesha ma taalo yahuud iyo islaam waxa way isku yihiin benziin
iyo dib isku yihiin waa cadow yahuudan islaamka ma jecla islaamkan yahuuda ma jecla marka inaan is ilaalino islaamnimadeena aan xoojisano walaalaheena muslimiinta ee Falastiin ee lagu laayay aan u duceyno oo aan iyaga qalbiga gashano u naxno aan u oyno oo aan ka dhigano ehel iyo qaraabo kuwaas aan noo dhow ayaga muslimiin ah iyaga maanta garab istaagooda mudan ayaga mudan inaan wax u qabano ayaga mudan inaan u damqano ayaga mudan inaan soo dhaweysano dad la soo dhaweysa ayaga ugu mudan xaq bay ku dagaalamayaan xaqana lagu laaynayaa caruur walaa hooyo walaa dumar walaa waayeel walaa oday walaa dhalinyaro waxaa lagu laaynayaa gardaro weyn waxsaan yeelaan waa yahuuda taasna waxay kutusinaysaa naceebka ay u qabaan islaamka islaam ay jecel yihiin ma jirto waxaan qosolka ay wax arkaysiin waxba ku hoos duugan caray qabaan ogow waad arki doontaa hadduu ilaahay cimri ku siiyo oo caafimaadka ugu daro waad arki doontaa meeshaan hadda Hargeysa ee yahuuda yani soo galayso inay soo aqoonsanahay dad ahaan aqoonsanahay xirib dambadeed waad arkaysaa waad arki doontaa soo noqonaysa marka waxaan ilaahay ka barinayaa inuu ilaahay ka qabto dhulkan islaamka ah ee wada degan hal qoom oo la yiraahdo Soomaali marka waxaan leeyahay walaaladeen iska ilaali fudeedka badan iska ilaali hadalkaaga bato waxaad ku dhici kartaa gafaf waaweyn waana ku dhacdeenba qayb ka mid ah way ku dhaceen gafafkaasi qayb ka mid ah ficilada ay sameynayaan waxa weeyaan ficilo aan wanaagsanayn ee islaamka looga baxo marka ilaahay u toobad keena waxaan arkay oo aan ku faraxsanahay oday oo yani qirtay inuu qalad galay maalintii gaaladan Israa'iil yahuuda ay dhahday waan aqoonsaday Somaliland dal baan u aqoonsaday farxadda u farxay erayada gafafka uu ku dhawaaqay wuxuu dhahay gafka aan galay waan ka toobad keenay soo wajigiisa ka muuqdo shalay iyo qoomamo ka muuqato adiga waxaan leeyahay iyo inta la mid ah oo soo laabatay ay fahmeen in yahuud ay saaxiibtinimo galaynin walaaltinimo galaynin yahuud waa yahuud kii hore iyo kan haddaba waa yahuud isla yahuudkii leewa kana ka daran oo islaam dhameeyay islaam yar iyo weynba yani kala saarin yani ayagoon wax sameynin guryahooda ku dumiyay laayay cunug yar wadada iska socda toogtay kana ka daran kan mid la soo dhaweysan karo ma ahan marka adiga waxaan leeyahay ilaahay ka aqbalo toobada adka yani toobad keentay adiga waxaan leeyahay toobada Allah ka aqbalo ilaahay dhalinyarta sida ilaahay u fahansiiyay xaqa madaxweynaha maamulka Somaliland wuxuu u egyahay markaad fiirisid body language-kiisa ayuu egyahay min qasban inuu yahay ayuu egyahay maalintii wasiirka la sheegay imaaday Hargeysa hadal loo dhiibay ayuu ahaa waliba qosolka xataa qosol isaga ka imaado ma ahayn qosolka wuxuu ahaa qosol yani qasab ah qosol yani isaga ka soo gooday qalbigiisa ka soo gooday ma ahayn si fiican qofka يعني صاحب العقل قال سفاها أو في مقال كاسي مدحوينه وقسبيه
mid qasban weeyaan rakaatuu ku jira meel uu ka bixi karo ma joogo meel haduu ka laaban karo ma joogo waxa laga yaabaa fudayd inay u geysiyo markii horeba waraaqada saxiixa isagoo raadinaya aqoonsi bis laakiin markii dambena ku daba gadoontay oo ku daba laabatay isagii oo hadda fahmay laakiin meel uu ka baxo meel uu ka baxo waayay meel uu ka baxana ma heli karo mar hadii gaalada yahuuda gacantaada gasho yani gacantooda aad gasho ku dhamaatay bis imma inaad geeriyoto oo aad ka soo horjeesato lagu dilo ama imma in aad warkooda raacdo oo rufyaan aad u noqoto oo war aad u gudbiso waa inay si kale kuma badbaadaysid waxayna ilaahay ka fujiyo rakaatada cadawga oo gacantiisa ku jiro cadawga gacantooda ku jiro ilaahay ka soo deeyo mid ku qanacsan ma aha dadka qaar ma fahmayaan laakiin qofka waxa la fiiriyaa qaabka uu hadlayo wajigiisa iyo hadaladiisa indhihiisa la fiiriyaa qofka inuu qasban yahay oo rakaatu ku jiro uusan ka bixi karin yani uu waayay يعني ku qasban yahay marka inuu qosol iska keeno inuu muujo inuu ku faraxsan yahay waxa soo dhan waad ka dareemaysaa culimada la xaray waxa leeyahay ilaahay yaa soo deeyo xaqa waxa weeyaan qaraar qul الحق ولو كان مرا حق الشيء قرار بها حق وقرار حقيقي dadka qaar way gooysaa xaqa علمنا وحلي اصبروا وصابروا صبر والله صبرت مع عدوكينا وتقول إنسان حقيت شيكتان حقيت موجسان رنتيت عديسان وحال إذن كوهيستا محاد حقا وشيكتين محاد حقا وشيكتين على إذن كوهيستا محاد رنتا أمدا وشيكتين على إذن كوهيستا وحال إذن كوحرا وإنتا وحال لغيها ومركا إلهي مكساه إلهي كم جنجلي وحويان إلا إذن دل هذه إلا إذن دل حتى لمشاهدك ومهرين تتحقق كل متان إلهي حيث كبرها جنة الفردي لا إذن دله إن إلهي جنة سيدنكو أول مريو هذه بعد